Dhiig-karka waa xaalad ay marinadu dhiigga yeelanayaan cadaadis joogto ah. Dhiigga aadanaha waxaa bambagaraya wadnaha, deedna waxaa lagu sii jiheeyaa jidhka qaybihiisa kala duwan, gaar ahaan qaybaha leh marinada dhiigga. Dhiig-karka waa xaalad caafimaad halis ah haddii bukaanku uusan helin daryeelka loogu baahnaa. Wuxuu kordhin karaa fursadaha sida inay waxyeello soo gaadho wadnaha iyo kelyaha. Sanado badan ayuu qofku yeelan karaa dhiig-karka iyadoon wax calaamado ah lagu arkin. Haddii qofka uusan lahayn calaamadaha dhiig-karka, taa kama dhigna inaysan waxyeello u geysanin xanuunkan. Waxaa wanaagsan qofka haddii dhiig-kar leeyahay inuu ku xidhnaado dhakhtar si dhow ula socda. Ururka Caafimaadka Adduunka wuxuu dhiig-karka sanadka 2015 ka diiwaangeliyay in bukaanada la dhiban xanuunkan ay tiro ahaan gaarayaan 1.13 bilyan qof adduunka oo dhan. Waxaa sidoo kale la tilmaamaa in 4 qof oo rag ah hal ka mid ah ayaa qaba xanuunkan, halka 5 qof oo dumar ah mise haweeney ah hal ka mid ah xanuunkani qabto. Bukaanada leh dhiig-karka intooda badan wax calaamado ah laguma arko, xitaa mararka qaarkood haddii cadaadiska dhiigga qofka si daran sare ugu kaco. Calaamadaha lagu arki karo waxaa ka mid ah madax xanuun, naqas ku dhegid, sankoror. Calaamadahan ma ahan kuwa gaar u noqonaya keliya dhiig-karka, laakiin waxaa qofka lagu arki karaa markuu dhiig-karku marayo heer sare severe high blood pressure. Dhiig-karka markuu heerkani marayo wuxuu khatar gelin karaa nolosha qofka. Iyadoo lagu saleynayo waxyaabaha keena dhiig-karka, waxaa jira 2 nooc oo dhiig-kar ah. Waxay kala yihiin primary hypertension oo micno ahaan loogu jeedo dhiig-karka koowaad. Waa nooca ugu badan ku dhaca dadka, wuxuu soo jiitamaa muddo fog. Aqoon buuxda lagama haysto waxa si dhab ah u keeni kara. Secondary hypertension noocani waa nooca labaad dhiig-karka, wuxuu qofka ugu soo muuqdaa muddo kooban. Dawooyinka qaar iyo xaalado kala duwan ayaa qofka u keeni kara dhiig-karkan, sida dadka qaba xanuunada naqaska xidha, dadka leh dhibaatooyin la xidhiidha kelyaha, dadka qaba kansarka, carruurta ku dhasha xanuunada ku dhaca marinada dhiigga. Xanuunkani waxaa u nuglaan kara dadka da'da ah more than 65 years, dadka qof ka mid ah qoyskooda qaba dhiig-karka, dadka buuran mise miisaan culeyskooda sareeya. Haddii bukaanka la siin waayo mise uusan helin daryeelka iyo dawooyinka loogu baahnaa, waxaa dhici kara wadne xanuun, faalig iyo dhibaatooyin kaloo badan.